isaga awgii ayuu Hitler ku gumaystay Yurub. Ruushka iyo Maraykankana wuxuu ka dhigay dawladaha adduunka ugu awoodda badan. Kuuriyada Waqooyina gaajaday ka doorbiday helitaankiisa. Iiraanna waxay doonaysaa inay caalamka kaga bajiso. Sacuudiguna sidii u heli lahaa waxay isu khilaafeen Maraykanka. isaga la'aantiina waxba ma tarayo nuclear. midka kaliya ee ka midana waxa uu dhigmaa guutooyin diyaaradaha dagaalka waana gantaalada blastikada. hadiyadu Hitler uga tagay si loogu huriyo dagaalada. gantaalkan blastikada waa gantaal loo rido jiho wuxuuna u kacaa qumaad waana arinta uu ku qaatay magacan. waana arinta ka gaar yeeshay gantaalkan gantaalada kale ee aan qumaantiga u kicin. magacan Mark ee loo yaqaano maaha mid ciidan mana aha shirkadda samaysay. si taalamida looma yaqaano nooca gantaalka laakiin waxa loogu yeedhaa gantaal kasta oo leh sifada blastikada ee raaca jid qaloocan sida qaansada oo kale. isagoo dulduulaya dhulka gaadhayana masaafooyin fogfog xambaarsan qumbuladaha qumaatiga u kaca. cidii ugu horeysay ee soo galisa adeega ciidamada gantaalkan waxa ay ahayd Jarmalka xilligii uu Hitler maamulay. markii ugu horeysay ee la tijaabiyayna waxa ay ahayd sanadii 1938 wuxuuna xilligaa gaadhayay masaafo dhan 200 oo kiiloomitir waxaana lagu magacaabi jiray Fautu. wuxuuna Hitler ka caawiyay inuu ku khiyaamo dawlado fara badan xilligii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee caalamka. wuxuuna ahaa mid si saxan ugu habsada bartilmaameedkiisa wuxuuna abuuri jiray burbur baaxad leh. kadib xilligii Hitler lagu jabiyay dagaalkii labaad ee adduunka waxa ku tartamay horumarintiisa Ruushka iyo Maraykanka. mid kastaana wax ka bedel buu ku sameeyay si ay uga dhigaan mid qaaradaha iskaga kala goosha. sidoo kale Maraykankuna waxa uu adeegsaday inuu dayax gacmeedyo ku diro. waxaana soo baxay noocyo cusub oo kale sida gantaalada Scone iyo Radstone, RT, R5, R7, R9 iyo R306. dawlado kale oo badanna way ku tartamayaan gantaaladan helitaankooda. aragti ahaanna hadidaado fara badan buu ku hayaa cidda loogu bartilmaameedsanayo. waana gantaal laga rido meel kasta dhulka hoostiisa ama korkiisaba iyo xitaa badda. waxaana laga ridi karaa gujisyada iyo maraakiibta diyaaradaha xambaara. noocyadanna waxa adduunka ka haysta 5 dawladood oo kala ah Maraykanka, Ruushka, Ingiriiska, China iyo Faransiiska. waxaas oo arrimaana waxay ka dhigtay arrinay dawladaha oo dhami ku riyoodaan. Kuuriyada Waqooyina waxay si joogta xaflada ugu dhigtaa helitaanka gantaalkan si gaarana ka qaaradaha iskaga kala goosha. si taalamida Iiraanna waxa ay xustaa inay haysato gantaaladan waxayna ku baqogalisa bartilmaameedyadeeda ka fogfog sida Yurub iyo Israa'iil. sanadii 2019 waxay shaacisay Israa'iil inuu Sacuudiguna bilaabay inuu samaysto gantaaladan blastikada. wax lala yaabo maaha inay ciidamada caalamku u yaacaan helitaanka gantaalka maxaa yeelay waxa uu bartilmaameedkiisa ugu dhacayaa si saxan. burbur xad dhaafan wuu ku sameeyay wax ka hortagana lama hayo. sidoo kale wuxuu qaadaa qumbuladaha nuclearka waxaanay dawlad kaga filan yihiin inay dagaalo u dirto diyaarado iyo taangiyo. gantaaladana cidi lama tartamayso ilaa gantaalada Kurska mooyaane ee aynu barnaamijka kan ku xiga kaga hadli doono.